وأصحابه ومن والاه أما بعد إلى سبحانه وتعالى أيام هالكله الله سو إنه سو كل مية هالكاني سنوفى إذا سنو خيرك وخيراتك وبعد هذا إن شاء الله تعالى وحنكون جزرنا برنامج كني إصلاح الأسرة عاونا إن شاء الله تعالى وحنك هالدي دونا هدو إلهي سبحانه وتعالى يراهدو فن الحوار بين الزوجين فن الحوار بين الزوجين وهذا الكه أي وهذا ليان لمانها إسقبه أي كسب سيهي موضوعنا إن شاء الله تعالى موضوع اللواري موضوع أساسي بان إن شاء الله تعالى أن كهل دونا هدو ربي رالك نقضه مشكلة عدم التواصل بين الزوجين مشكلة كيني كرتا لوادو قف إنيسان وذهب لنا وذا شيكيسانين مشكلة كيني كرتا نحكش يجي دونا هدو ربي رالك نقضه وحاكو نحكش يجي دونا هدو إلهي راه سبحانه وتعالى الحل لهذه المشكلة حلقة لو حل كرو مشكلة داسي كينتي لواد قف إنيسان وذهب لنا وهذا الكوحو كميد يهي ركنيada ugu waaweyn iyo tiirarka ugu waaweyn ee guriga uu ku dhisan yahay hadii reerka ay si fiican ay wada hadlaan boqolkiiba 99.9 waxay u badan tahay guriga inuu farxadiisa iyo inuu sii dhisnaado boqolkiiba 99 ay u dhowdahay wada hadalku marna wuxuu keeni karaa gurigi inuu dumo marna wuxuu keeni karaa gurigi inuu dhismo haddaan nahay annaga Soomaali guryaheena lagama yaqaano wada hadal guryaheena lagama yaqaano in la is horfadhiisto qalin waraqad la isku soo qaato oo la xisaabtamo anaga gurigeena lagama yaqaano sida loo aamusan yahay oo xanaaqi la isku qarinayo dagaalkii sida kalimaadkii loo aruurinayo hal mar buu qofkii qarxaya markaas buu leeyahay ifur iyo waan ku furay kaliya hore waxaan ugu soo hadalnay mawaadiic fara badan oo arinta ku saabsan waxyaabo aan ka soo taataabanay liajli hada caawan waxaan u qaydnay oo kaliya in aan baranno sida loo wada hadlo inaad barato hadaadan gurigaaga iyo qoyskaaga ama adiga iyo odaygaaga mise adiga iyo xaaskaaga hadaadan wada hadlaynin sidee baad xalkiina sideed ku gaaraysaan mida kale guriga mar walba waxaan ku celcelinaa guriyaha oo idil jecel kuma wada dhisna guriyaha aad u jeedid oo idil jecel kuma wada dhisna ee guri waxyaabo fara badan ayuu ku dhisan yahay raxmad ayuu guriyaha qaar ay ku dhisan yihiin qaarna maxabba ayay ku dhisan yihiin qaarna mawadda ayay ku dhisan yihiin qaarna xibaar iyo sheekaysi ayay guriyaha qaar ku dhisan yihiin sidaa darteeda bal caawa insha allahu tacaala inaan baranno sida loo wada hadlo inaan baranno sida loo sheekaysto inaan baranno marka la isku dhaco oo la isqabto sida loo wada hadlaayo sida la isku qanciyo sida arinta loo qaboojiyo sida arinta loo dejiyo sida qofka waxaad ka tabanaysid ugu gudbinayso ay insha Allah ta'ala mawduucina uu ku saabsan yahay fata'aalu macana linabda insha Allah ta'ala waxaan ka bilaabaynaa mashaakisha keeni karta labada qof inaysan wada hadlaynin mushkilaadka aad bay u fara badan yihiin laakiin waan soo koobi doonaa mushkilada ugu horeyso mushkilatul khars الزوجي وغياب الحوار بين الزوجين إن أيسن قبدي يؤذيك إذا إن أيسن وضهضلين إن أي كلا آموسان أرنتا وحي كمتها مشاكش أقوين حياة زوجك إن لا وضقف أي آموسان
inaysan sheekaysanin arrintaa waxay ka mid tahay mashaakisha ugu waaweyn ee guryaha ka dhaca ayay ka mid tahay. in la iska aamuso micnaheedii ma ahan inaan la isjeclayn. dadka qaar ayagoo isjecel baysan sheekaysanaynin, ayagoo israbaan bay wada hadlaynin, ayagoo caruur isku dhala bay haddana kala aamusan yihiin. liajli hada waxaa la yidhaahdaa guriyaha marka la joogo dadka way aamusan yihiin. zawjkii guriguu soo galaya, fadhiguu u gudbayaa, laabtoobkii iyo teleefoonkii buu soo qabsanayaa, masariirtuu u gudbayaa. gabadhii sidoo kale teleefoonkeeda dhagaha ugu xagga iska fadhisaa. wax wada hadal la yiraahdo iyo wax sheeko la yiraahdo guryihii ma dhex taalo. mushkilada koowaad wey. baynamaa marka banaanka la joogana la dhoola caddaynaayo, marka saaxiibada lala joogo, meelaha shaqada lala joogo, meelaha lagu kulo marka la isku yimaadana gabadhii way dhoola caddaynaysaa, odaygiina wuu dhoola caddaynayaa, bal wuxuu ku hadlayaa kalimaad jadaaba, kalimaad soo jiidasho leh ayuu ku hadlayaa. arrinta labaad mushkilada waxaa la yidhaahdaa al-intiwaa'iya biqasdin wa biduun. intiwaa'iya micnaheeda waxaa la yidhaahdaa qofka inuu iska aamusan yahay, qofka inuu iska degan yahay, uusanba reer hadal ma ahanba, ama qofku iska aamusan yahay waa qof iska degan oo dabeecad ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ku abuuray. dadka qaar ma jecla inay dadka soo dhex galaan, kama ahan yasid, kama ahan isla weyni, kama ahan wax kale, keliya dabeecad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray bay arrintaasi ay tahay. waxaa la yidhaahdaa arrintaa markay dhacdo al-intiwaa'iya, uu qofkii noqdo qof degan. markuu qofkii noqdo, qofka kale wuxuu u fasiranayaa in uusan qofkaani uusan fahmaynin, mise qofkaani inuusan jecleen buu u fasiranayaa. kadib buu calaacan iyo wuxuu bilaabayaa iyo hadallo kale aan loo baahnayn baa meesha imaanayo. arrinta saddexaad, laa tastaqiim alxayaa azawjiya biduuni xibaar. nolosha zawjiga ah ma istaagayso ilaa in la wada hadlo maahine. guriga lagu wada noolaan maayo ilaa in la sheekaysto, ilaa in wax laisweydiiyo, ilaa in la doodo, ilaa in la niqaasho. guriga wax kale guriga kuma dhisnaanayo. waxaa la yidhahdaa bacdu alaswaaj aw izawjaat laa yu'minuun biahamiyati alxibaar. ragga qaarkii iyo dumarka qaarkii ma aaminsana muhiimadda ay leedahay wada hadalka. muxuu ii sheegayaa, maxaan ka dhegaysanayaa, muxuu idhahayaa, waxyaabahaasaan ku hadalnaa. laakiin muhiimadda ay leedahay wada hadalka iyo waxyaabaha lagu xaliyo arrintaasi aad bay u weyn tahay. bal waxaa la yidhaahdaa qofka inuu hadlo wuxuu doona ha ku hadlee waa qanaaca ayaa yidhaahdaa. qofka markaa la hadasho uu ku dhegaysanaayo, ma qofka markaa uu kaa jeesanaayo waxaa ka fiicanba inuu ku caayo, xitaa uu kusoo fiiriyo, uu kula hadlo. taas waxaa yidhahdaa ayay ka mid tahay qanaacada. famaa baalo laba qof oo isjecel, laba qof oo caruur isku dhalay, laba qof oo guri wada degan inay sheekaystaan, ayadan arrintaas maxay keeni kartaa? waxaa la yidhaahdaa arrinta kale alxibaar mas-uuliyatun mushtarika. alxibaar mas-uuliyatun mushtarika, in la wada sheekaysto oo sheekadii la bilaabo, sheekadii la wada hadlo, qofba qofka kale mas-uul ayuu kaga yahay. gabadha keligeeda mas-uulka ma ahan, wiilka keligiina mas-uulka ma ahan, kulligood mas-uul bay ka tahay. waxaa la yidhaahdaa ragga qaarkii mas-uuliyadda wada hadal la-aanta guriga waxay dusha kaga tuuraan, dumarka ayay kaga tuuraan. waxay yidhaahdaan xaaskayga ma hadasho, xaaskayga intay ka dhacday waa mid aamusan, waa mid qallafsan, ma taqaano kelimaad, ma taqaano sida loo doodo. arrintaa ayay ku hadlaan. sidaa darteed waxaan leenahay aswaajka qaarkii iyo ragga qaarkii dhexdooda waxaa ahaaday jidaar, derbi baa dhexdooda ka dhisan. derbiga maxaa loo baahan yahay? in la dumyaa loo baahan yahay, in meeshii lagu abuuraa loo baahan yahay. xadiiqa aseendayar meesha lagu abuuro, derbi meeshii in lagu abuura loo baahan yahay. kadibna meeshii uu yimaado bilaswaat aljazaaba, aswaat jazaaba, hadallo soo jiidasho badan, hadallo macaan,
هذا لوada qof ay ku wada hadlaan walaysa buyutana guryaheeni ma ahan sahra meel lama degaan ma ahan oo cidlo ah marka qofka uu hadlo hadalkii dabeesha ay qad qaadaysa ma ahan labada qof waxaa loo baahan yahay inay noqdaan laba qof oo isku dhow laba qof oo sheekaysanayso laba qof oo niqaashayso arrinta shanaad waxaa la yiraahdaa kasratul khilaaf khilaafkoo farabato kasratul khilaafkoo farabato taqtulu alxiwaar waxay dishaa wada sheekaysi la-aan bay keenaysaa khilaafka oo bato waxay keenaysaa labada qof inuu sheekadoodii ay yaraato waxaa la yidhaahdaa isqabqabsiga badan iyo hadallada adag labada lamaanaha dhexdooda hadday timaado meesha waxaa imaanayo inaan la wada sheekaysanin inaan la wada hadlin inaan waxyaaba kale isku qaada ayaa imaanayso khaasatan idaa kaanat izawja hadday gabadhii ay tahay mid carab dheer carabkeeda uu sakiin lamid yahay maanta dhan ay ku hadlayso waxyaaba aan loo baahnayn ee odaygeeda ay kula hadlayso arrinta lixaad alihtimaam almushtarika takhluqu alxibaar allah ficnaan badnaa alihtimaamaat in labada qof ay ihtimaam isa siiyaan labada qof in ay ihtimaam ay isdaneeyaan ay iska fakaraan arrintaa waxay abuuraysaa labadii qof inay wada sheekaystaan bay arrintaa abuuraysaa waxaa marra kale waxaad arkaysaa aswaaj aanan dhexdooda taalin ihtimaam isma danaynayaan waxaana samey waxaan barxaaskaaga garbasaarkaan ama malqabadaan uqaad wuxuu ku leeyahay maxaa iga galay may ayaga soo gadato bilaa ihtimaam mustaqbalkeeda maad ka fakartid maxaa iga galay waxaana maad uqabatid maxaa iga galay adigan sidoo kale dal yirahdo war odaygaaga saan weeyaan waxay leedahay muu dhinto muu derbi kasoo dhaco muusan soo laabanin nimaa lawaynaya ayaa noocaas baan ku hadalnaa laakin waxaa loo baahan yaha dhahanay ihtimaam labada qof inay isa siiyaan ay iska fakaraan ayaa loo baahan yahay haddii meesha laga waayo ihtimaam meesha waxaa ka baxaan dhahnay labada qof inay wada sheekaystaan ay wada xiriiraan arrinta todobaad ghiyaabu tafaahum yuuladu sumt labada qof haddaysan isfahmaynin ama hadduu dhexdooda ay ahaato isfaham la-aan meesha waxaa ka dhalanayo aamusnaan iyo labada qof inay kala aamusnaadaan ina sumta aamusnaantuna kama turjumaysa labada qof inaysan isjeclayn laakiin waxay ka turjumaysaa labada qof inaysan isfahmaynin labada qof dhexdoodii inuusan isfaham fiican inuusan yeelin intaa waxaan dhahnay waxaa lagu gartaa isfaham la-aanta iyo wada hadal la-aanta labada qof dhexdooda arrintaa ayaa lagu gartaa haddaba sidee baa xalka loogu gaari karaa mise xalka sidee buu noqonayaa waxaa arrintaa lagu xariyaa dhowr arrimood baa lagu xalinayaa haddii la isqabto ay noloshii ay qaraaraato waxaa loo baahan yahay labada qof inay wada hadlaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax isweydiiyaan waxa la isweydiiyana waxay ka mid tahay xalka guriga ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa xalku wuxuu aas-aas u yahay in labada qof xalkooda gurigooda iyo wada socodkooda iyo wada noolaashahooda ayuu wuxuu u yahay aas-aas u yahay haddii labada qof aysan wada hadlaynin aysan wada sheekaysanaynin arrintaa waxay daliil u tahay wada socodkooda iyo wada noolaashahooda in ay arrintaasi ay dhibaato fara badan ay kasoo gaarayso haddaba maxaa lagu xaliyaa arrintaasi maxaa lagu xaliyaa waxaa aan kusoo koobi doonaa dhowr arrimood ko fatxu qanawaat jadiida lilxiwaar labadii qof inay furaan buug lagu wada hadlaayo waxaan ula jeedaa labadii qof inay ku wada hadlaan hadal walbo mubaax u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u baneeyey waxyaabaha hadalka lagu bilaabo waxaa ka mid ah axdaath alyawmiya gabadhaada kulama sheekaysato kulama hadasho mise odaygaada kulama hadlo markuu guriga yimaado waxaa lagu bilaabaa waxyaabaa loo sheegaa maanta waxaana dhacay wiilkaaga yaraa hadalka wuu diiday habeel iskuolka casharka wuu ka bixi waayo waxyaabahaasa sheeka lagu bilaabaya
mise waxaa sheeko lagu bilaabayaa fi liscaar asilac badeecadii way qaaliyowday loorkii bariiska inta ahaada wuu qaaliyoway sumaakirkii waxbaa lagu daray sheekada meesha laga bilaabayaa kadib waxay noqonaysaa sheeko furan iyo buug furan buu noqonayaa. waxyaabaha kale waxaa kamid ah ikhtiyaar alwaqt almunaasab, marka labada qof ay wada hadlayaan inay doortaan waqti ku munaasab ah, inay doortaan waqti ku munaasab ah. waxaa la yidhaahdaa haddii labada qof midkood midka kale uusan waqti la eeganin, arrintaa waxay keeni kartaa labadii qof inay kala fogaadaan. xilliga haddii qofka uu baahan yahay dood iyo hadal ha ku bilaabin, hadduu qofka xanuunsan yahay, hadduu daalan yahay, laakiin waxaad la eegataa qofka xilli uu nasanayo, uu habi uu yahay, uu faraxsan yahay, xilliga ayaa loola eegtaa wada hadalka. arrinta labaad altamyiiz bayna alkhada walinsaan, in la kala saaro qaladka iyo qofka in la kala saaro. qofkani waa bini aadam, bini aadamkana wuxuu u samaysan yahay inuu qalad dhaco. kullu ibnu aadama khadaa wa khayru khata'ina atawaabuun, aw kama qaala calayhi salatu salaam. rasuulku muxuu leeyahay ibni aadam waa inuu gafayaa, adi malaa'ig ma guursanin, adiga ma guursanin, bashar baad guursatay, gafaayo, qalad ka dhacaayo, wax ka dhacayo, wax samaynayo. laakiin maxaa loo baahan yahay qaladka uu galay iyo inaad kala saarto shaksi ahaantiisa. ninkan qalad uu galay mise gabadhana qalad bay gashay, waa inaad kala saarto, aad tidhahdaa qaladkaa samaysan, adigan saanaa tahay, inaad kala saarto. arrinta saddexaad waxay tahay ikhtiyaaru lkalima, in la doorto kelimad iyo wixii lagu wada hadli lahaa in la doorto. waxaa la yidhaahdaa ikhtiyaaru lkalima waxay tahay haddaad markaad inaad rabto majaal mise hadal inaad u furto odaygaaga mise gabadhaada, aadan ogeyn waxaad ku hadlayso, waxay keenaysaa inaad kala fogaataan. laakiin waxaad ka hadli rabtid iyo hadal fiican inaad diyaarsato. waxaanaad iga samaysay, waxaas aniga makaa muteystaa, waxaanaad iga gashay, waxaas makaa istaahilaa, inaad kelimaad wanaagsan qofkana uu wax ku dareemayo in aad tiraahdo, inaad kelimaad qofkana uu wax ku qaadanayo, adigana ay wax aysan ku dhimaynin in aad isticmaasho. laakiin soomaaliyaan nahay, haddaan qof inaan wax uqa waxay yidhahnaa indhaha loo shitaa, indhaha marka loo faraha indhaha laga gela kadib waxa loo sheegaa. taas ma aha yacni inuu qofka kelimaad aad diyaarsato, aad ku tiraahdo si degan, wakti aad la fiirsato, kadibna aad la hadasho. arrinta afaraad waxay tahay almawduuciya, mawduuca aad ka hadlayso inaad diyaarsato. maxaan ula jeedaa mawduuca hadda taagan iyo qaladka hadda taagan inaad ka hadasho. ha soo faagfaagin mawaadicdii hore, 2006 waxaana iga samaysay, 2000kii markaa isguursanayn waxaana leesh. mawduuca hadda la taagan yahay inaad ka hadasho, si basiid ah inaad doorato, aad wada hadasho. haddii guryaheeni ay wada hadli lahaayeen, haddii dadkan ay sheekaysan lahaayeen, furitaanka maanta ma nagu badan lahayn. maanta waxaa la yidhahdaa furitaanka soomaalida wuxuu marayaa 89%. maxaa noo harayba 89 maxaa noo harayba 90 kala gelinaynaaba. marka furitaankeena wuu yaraan lahaa, bal inay ilaa ajaanibta isweydiin yidhahdaan war soomaalidii maxaa ku dhacay, furitaankii mid walbo socoto cunug bay la ordaysaa, mid walbo meel taaganna garoob waayo, maxaa ku dhacay. laakiin arrintaa waxaan leenahay waxaan ugu bixi karnaa inaan wala hadalno, aan arrinteeni khilaafaadkeeni aan dhamaysano, aysan arrinteeni furitaan iyo dagaal inaysan kusoo dhammaanin, mawduucaan isku haysano iyo qadyada hada taagan inaan ka hadalno, waxyaaba tegtegay inaanan soo qaadanin. arrinta shanaad ikhtiyaar al-usluub alhaadi, qofka inuu qabsado wakti ku habboon. waxaa la yidhaahdaa markaad wada hadlaysaan inaad ku wada hadashaan meel haadi a degan, inaad ku wada hadashaan. waxaa la yidhaahdaa culimadu waxay yidhahdaan الsawtu muhimun fi lmusaaraxa, hadalka degan wuxuu ka turjumayaa wanaaga labada qof ay isku heeyaan. qal hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu jecleen, qal hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu doonaynin, qal hadduu dhaco micnaheedi maha inaan lagu rabin, qalad hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu takrifalaayo. qofka wuu qaldami karaa, qalad wuu dhici karaa, laakiin markaad wada hadlaysaan
aad qofka wax aad u qabsanayso maxaa loo baahan yahay waqti ku habboon inaad qabsato mawduuca aad taagan inaad ka hadasho hadal fiican inaad ku hadasho isluub haadi ah inaad u hadasho intaasi waxay tahay baan dhahnay sida loo xaliyo mashaakisha guriga iyo sida loo wada hadlo markuu dhib imaado arrinta kale waxaa yidhahdaa التجزئة في المصارحة التجزئة في المصارحة waxaa ula jeednaa marka labada qof ay wada hadlayaan in ay ku hadlaan in ay u hadlaan infiraadi waxaan ula jeednaa halsha arrin taagan keliya in laga hadlo hal mawduuca taagan mawduuca keliya in laga hadlo in hal mar qofka yidhaahdo waxaana iga samaysay waxaana samaysay inaad malafaad iyo buwaagtii hore aad la soo baxdo arrintaa waxaan dhahnay waxay keenaysaa labada qof inay isku xanaaqaan oo isfahmi waayaan laakiin mawduuca hadda taagan caawa jasti taagan in laga hadlo la dhameeyo la daboolo la jexjeexo destibilinka lagu soo rido kadib midkaa la furaa loo baahan yahay waxaan dhahnay markaan kasoo hadlayna muxaadaradeenii hore sidee qoyska loo xaliyaa baro sida qoyska loo waxaan dhahnay soomaalida guryada waxyaabaha buri waxaa kamid aan dhahnay qofka wuu keesanayaa waxyaabaha uu qabo wuu keesanaya waxbaa laga sameynaya wuu qorayaa buug buu qoraya marna wuu xisaabtamaya hal mar buu xanaaqay wuxuu leeyahy war waan qarxayaaye ifur madaxayga isii leesh maxaa keenayo qofkii wuxuu keesaday qaladaadkii laga galay buu keesaday laakiin waxay ku fiican tahay jasta qalad laga galo inaad keentid aad banaanka soo dhigto in lagaa xaliyo lagaa qanciyo taasina wanaag iyo khayrka uu ku jiraa arrinta toddobaad cala alinfiraad marka la wada hadlayo in gooni loo baxo marka la wada hadlayo in gooni loo baxo maxaan ula jeednaa inaan caruurta hortooda lagu hadlin maxaan ula jeednaa marka baska la saaray in la doodin maxaan ula jeednaa marka telefoonka lagu hadlayo dadka la ag joogaan inaan la hadlin leesh qof walbo bini aadam ah ilaahay wuxuu ku abuuray oo qalbigiisi iyo ku jira takabur isla weyni maxaa la yidhahdaa qofkan haddaad tirado waxaan baa ii qabatay oo qof kale u ag joog uu maqlay muxuu ka ordayaa naagta ninka naagta waa iska haysataa naagtiina maxay ka ordaysaa war adigoo yurub joog meelahan joog mayaa lagu gumaysanaya yani qofkii wuxuu la war bax wali iga tag ama ay gumaysanaysaa laakiin marka la wada hadlayo cala alinfiraad in meel gooni loo baxo si khaas loo hadlo markaasayna arrinta ay ku fiicnaanaysaa taasayna wanaag iyo khayr lagu gaarayaa khaasatan maxaa loo baahan yahay ilmaha hortooda in aan lagu doodin ilmaha hortooda inaan lagu wada hadlin ilmaha hortooda inaan la isku caynin ilmaha hortooda inaan hadal lagu furin markay ilmaha seexdaan ay iskuolka aadaan markaan leenahay wakti ku munaasab ah dooro waxaan ula jeednaa xilli aad labadiina keliya aad tihiin ilmihii iskuol ay jiraan mise ay wareeg ay aadeen aad guriga keligiin aad ku sugan tihiin mise ay seexdeen kadib meeshaas kuwada hadla arrinta kale waxaan anay ilmaha hortooda lagu hadlo waxaan anay ilmaha mar walba waxay u baahan yihiin in la tusiyo al-iijaabiyaat wax wanaagsan keliya inay idinka arkaan mar walba aan kusoo celcelinaa ilmaha hortooda in cuntada afka la isugu geliyo oo hortooda la isku dhunkado hortooda cabitaanka lagu cabo taasay ilmaha ay kusoo barbaarayaan wanaag iyo khayr bay ku gaarayaan arrinta sideedaad bad-ul ixyaa bad-ul iijaabiyaat in laga bilaabo waxyaabaha wanaagsan qofkan qalad buu kaa galay waa ishor fadhiisateen inaad ka bilaawdo waxyaaba wanaagsan u qabtad war nin yahow qof fiican baad tahay war gabar yahay qof fiican baad ahayd waxaan baad tahay maasha allah weligaa saan baad ahaan jirtay saanaa kugu aqaanay saan baad ahaan jirtay maasha allah laakiin hal arrin baa aan kaaga cawanaya walaalow maxay tahay bay ku leedahay walaalow muxuu yahay bay ku leedahay markaas waxaad leedahay saan iyo saan baad jirtee maxaad ka leedahay laakiin marka la isu soo hor fadhiiso oo qorigii aakihii la cabeeso xabad afka la iska geliya ma ahan in marka u horeyso laga bilaabo iijaabiyaat qofka in la faaniyo wanaagiisii la sheego hooyo ka waran aabba ka waran maanta malixi qofka inaad markaad meelaha aad soo wareegto kadib waxaad leedahay niyo hal arrin baa kaaga caawinaya wallahi aladi laa ilaha ilaa hu qof bini aadam ah aad wanaagiisa aad ka bilawday aad ninkaasi ama gabadha aad rajo ka leedahay aad mawduuc sidaa aad ugu furto wallahi inaysan ku cayninin xitaa haddaad adiga ka gardaran tahay mawduuca aad u bilawdo raali aha bay ku leedahay ama raali aha buu ku leeyahay wallahi baan ku dhaartay qof walbo bini aadama iijaabiyaad buu u baahan yahay ma u baahno salbiyaad waxyaaba xun in kaliya in laga bilaabo midda tabaad waxaan anay
إن علمه هنا عدم التصويف، عدم التصويف. تصويف حنقول جينا إن ملفات كهراء أسكت دافنو أنا بهذا كيرتان أنا كلي أحيانون بيتوانات جوريجا أنت قوة النور عرور يعرولبا إن لو أقولادو إن أي دتك الله أي دتك إن لدودي كرا إن أي برتان أنا عرولتنا هذه هو يحبي وريا بحنا يطلعنا وريا وإبدأ أنت هاي حق سيح بح كوديل كليا عنيجا إن لسيو إنه هالدي كرو إيجابيات وحياها وأسرع نفسنا إنه كهالدي كرو قبل سيدو كله أبيه سيدو كله مركز جوري نقولنا يا جوري فرحة وناق يخير لو النوري هاي نقولنا يا أرنت كله وحيت هاي الاحترام رأي الآخر قفك كله إن احترامته رأي جيسي وهو أسرع كهالله وحن إنسان بس كوه بونت إنسان هذا شيء محقبة يا ترى هذا صحوي سان أفهمتي لكن أنا إنسان بأفهمه حد ما حال ما صمينا وبهذا في عنبه لكن هذا ما إيت لسان وحرم صمينا يا وحرم قفصنا يا هذا مش كان حمانا يوم دبعت كلام نشوف وحنا أنا أرنت كلاته الإنصات الجيد لا ولا قف مركي ولا هذا إن إسلجستان dhageysiga waxaan dhahnay qofka kale inuu ihtimaam iyo ixtiraamayo waxa lagu gartaa marka ay wada hadlayaan la gartaa waxa lagu gartaa qofka marka aad ixtiraamayso waa la eegaysaa marka qofka sheekaysiga kugu socoto waa dhageysanaysaa sadarta waxaan dhahnay labada qof markay wada hadlayaan inay is dhageystaan inay is eegaan taasina waxay kamid tahay waxyaaba guriga lagu xaliyo anfaantiisa mid kale waxay tahay la lisawt alali marka la wada hadlayo inaan hadalka kor loo qaadin inaan isku buuqin inaan hadalka aan afka la furin ee si degan oo haadi ah waqti ku munaasaba in la wada hadlo mida kale aan leenahay tajdid alxibaar mar walba in la cusboonaysiiyo wada hadalka اسبوعي ان مر لا فديستو ان laga wada hadlo waxyaaba qaladaad ka dhacay isbuucaasi qaladaad isbuuca qaladaad kale maanta qaladaad kan xalinayno maxaa tawanaysa maxaa diyaarad maxaa iga dareentay qofka inaad tiraahdo mida ugu dambayso si'atu as-sadri qofka markaad wada hadashaan uu ku qanciyo inaad laabta aad ka saarto waxyaabihii hore aad qalbigaaga nadiif aad ka dhigto taasina waxay kamid tahay waxyaabo wanaagsan bay kamid tahay mawduuc maanta la xaliyay hadduu beri mid kala dhaco ha soo celin midka shalay la xaliyay kaasigudu midka maanta taagan kaliya ka hadal taasaa la yiraahdaa si'at as-sadri laabta oo laga saaro xumaanta iyo waxyaabaha kale mar walba waxa loo baahan yahay lamaanaha inay wada hadlaan inay wada sheekaystaan inay isfahmaan taasina waxay kamid tahay waxyaaba wanaaga iyo khayrka lagu gaaro ayay kamid tahay haddaan la wada hadlin haddaan la iska aamuso waxaa imaanayaan leenahay waxaa imaanayso in labadii qof inay kala dudaan ay dhibaato fara badan ay gaarto gurigooda iyo mustaqbalkooda ayaa laga yaabaa marka waxaan leenahay insha allahu tacaala in la barto fannu tacaamul wa fannu alxiwaar bayna azawjayn ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala jadiida lilxiwaar labadii qof inay furaan buug lagu wada hadlayo waxaan ula jeedaa labadii qof inay ku wada hadlaan hadal walbo mubaax u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u baneeyey waxyaabaha hadalka lagu bilaabo waxaa kamid ah axdaaf alyawmiya gabadhaada kulama sheekaysato kulama hadasho mise odaygaada kulama hadlo markuu guriga yimaado waxaa lagu bilaabaa waxyaabaa loo sheegaa maanta waxaana dhacay wiilkaaga yaraa hadalka wuu diiday habeen iskuulka casharka wuu ka bixi waay waxyaabahaas sheeka lagu bilaabaya mise waxaa sheeka lagu bilaabayaa fi liscaar asilac badeecadi way qaaliyooday loorkii bariiska inta ahaada wuu qaaliyoobay supermarketkii waxbaa lagu daray sheekada meesha laga bilaabayaa kadib waxay noqonaysaa sheeko furan iyo buug furan buu noqonayaa waxyaabaha kale waxaa kamid ah ikhtiyaar alwaqt almunaasab marka labada qof ay wada hadlayaan inay doortaan waqti ku munaasab ah inay doortaan waqti ku munaasab ah waxaa la yidhaahdaa haddii labada qof midkood midka kale uusan waqti la eeganin arrintaa waxay keeni kartaa labadii qof inay kala fogaadaan
xilliga haddii qofka uu baahan yahay dood iyo hadal ha ku bilaabin, hadduu qofka xanuunsan yahay, hadduu daalan yahay, laakiin waxaad la eegataa qofka xilli uu nasanayo, uu habi uu yahay, uu faraxsan yahay, xilliga ayaa loola eegtaa wada hadalka. arrinta labaad التمyiiz bayna alkhada walinsaan, in la kala saaro qaladka iyo qofka in la kala saaro. qofkani waa bini aadam, bini aadamkana wuxuu u samaysan yahay inuu qalad dhaco. kullu ibnu aadama khadaa wa khayru khataa'ina atawaabuun, aw kama qaala calayhi salatu salaam. rasuulku muxuu leeyahay ibni aadam waa inuu gafayaa, adi malaa'ig ma guursanin, adiga ma guursanin, bashar baad guursatay, gafaayo, qalad ka dhacaayo, wax ka dhacayo, wax samaynayo. laakiin maxaa loo baahan yahay qaladka uu galay iyo inaad kala saarto shaksi ahaantiisa. ninkan qalad uu galay mise gabadhana qalad bay gashay, waa inaad kala saarto, aad tidhahdaa qaladkaa samaysan, adigan saanaa tahay, inaad kala saartid. arrinta saddexaad waxay tahay ikhtiyaaru lkalima, in la doorto kelimad iyo wixii lagu wada hadli lahaa in la doorto. waxaa la yidhaahdaa ikhtiyaaru lkalima waxay tahay haddaad markaad inaad rabto majaal mise hadal inaad u furto odaygaaga mise gabadhaada, aadan ogeyn waxaad ku hadlayso, waxay keenaysaa inaad kala fogaataan. laakiin waxaad ka hadli rabtid iyo hadal fiican inaad diyaarsato. waxaanad iga samaysay, waxaas aniga makaa muteystaa, waxaanad iga gashay, waxaas makaa istaahilaa, inaad kelimaad wanaagsan qofkana uu wax ku dareemayo in aad tiraahdo, inaad kelimaad qofkana uu wax ku qaadanayo, adigana ay wax aysan ku dhimaynin in aad isticmaasho. laakiin soomaaliyaan nahay, haddaan qof inaan wax uqab waxay yidhahnaan indhaha loo shitaa, indhaha marka loo faraha indhaha laga gela kadib wax loo sheegaa. taas ma aha yacni inuu qofka kelimaad aad diyaarsato, aad ku tiraahdo si degan, wakti aad la fiirsato, kadibna aad la hadasho. arrinta afaraad waxay tahay almawduuciya, mawduuca aad ka hadlayso inaad diyaarsato. maxaan ula jeedaa mawduuca hadda taagan iyo qaladka hadda taagan inaad ka hadasho. ha soo faagfaagin mawaadicdii hore, 2006 waxaana iga samaysay, 2000kii markaa isguursanayn waxaana leesh. mawduuca hadda la taagan yahay inaad ka hadasho, si basiita inaad doorato, aad wada hadasho. haddii guryaheeni ay wada hadli lahaayeen, haddii dadkan ay sheekaysan lahaayeen, furitaanka maanta ma nagu badan lahayn. maanta waxaa la yidhahdaa furitaanka soomaalida wuxuu marayaa 89%. maxaa noo harayba 89 maxaa noo harayba 90 kala gelinaynaaba. marka furitaankeena wuu yaraan lahaa, bal inay ilaa ajaanibta isweydiin yidhahdaan war soomaalidii maxaa ku dhacay, furitaankii mid walbo socoto cunug bay la ordaysaa, mid walbo meel taaganna garoob waayo, maxaa ku dhacay. laakiin arrintaa waxaan leenahay waxaan ugu bixi karnaa inaan wala hadalno, aan arrinteeni khilaafaadkeeni aan dhamaysano, aysan arrinteeni furitaan iyo dagaal inaysan kusoo dhammaanin, mawduucaan isku haysano iyo qadyada hada taagan inaan ka hadalno, waxyaaba tegtegay inaanan soo qaadanin. arrinta shanaad ikhtiyaar inay kala aamusaan. arrintaa waxay ka mid tahay mashaakisha ugu weyn ee xayaatada zawjiga, in labada qof ay aamusaan, inaysan sheekaysanin. arrintaa waxay ka mid tahay mashaakisha ugu waaweyn ee guryaha ka dhaca ayay ka mid tahay. in la iska aamuso micnaheedii ma ahan inaan la isjeclayn. dadka qaar ayagoo isjecel baysan sheekaysanaynin, ayagoo is rabaan bay wada hadlaynin, ayagoo caruur isku dhalay bay haddana kala aamusan yihiin. liajli hada waxaa la yidhaahdaa guriyaha marka la joogo dadka way aamusan yihiin. zawjkii guriguu soo galayaa, fadhiguu u gudbayaa, laabtoobkii iyo teleefoonkii buu soo qabsanayaa, masariirtuu u gudbayaa. gabadhii sidoo kale teleefoonkeeda dhagaha ugu xagga iska fadhisaa. wax wada hadal la yiraahdo iyo wax sheeko la yiraahdo guryihii ma dhex taalo, mushkilada koowaad wey. baynamaa marka banaanka la joogana la dhoola caddaynaayo, marka saaxiibada loola joogo, meelaha shaqada lawada joogo, meelaha lagu kulo marka la isku yimaadana, gabadhii way dhoola caddaynaysaa, odaygiina wuu dhoola caddaynayaa, bal wuxuu ku hadlayaa kelimaad jadaaba, kelimaad soo jiidasho leh ayuu ku hadlayaa. arrinta labaad mushkilada waxaa la yidhaahdaa alindiwaa'iya biqasdin wa biduun. indiwaa'iya micnaheeda waxaa la yidhaahdaa qofka inuu iska aamusan yahay,
qofka inuu iska degan yahay uusanba reer hadal ma ahanba, ama qofku iska aamusan yahay waa qof iska degan oo dabeecad ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ku abuuray. dadka qaar ma jecla inay dadka soo dhex galaan, kama ahan yasid, kama ahan isla weyni, kama ahan wax kale, keliya dabeecad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray bay arrintaasi ay tahay. waxaa la yidhaahdaa arrintaa markay dhacdo al-indibaa'iya, uu qofkii noqdo qof degan, markuu qofkii noqdo qofka kale wuxuu u fasiranayaa in uusan qofkaani uusan fahmaynin, mise qofkaani inuusan jecleen buu u fasiranayaa. kadib buu calaacan iyo wuxuu bilaabayaa iyo hadallo kale aan loo baahnayn baa meesha imaanayo. arrinta saddexaad, laa tastaqiim alxayaa azawjiya biduuni xibaar. nolosha zawjiga ah ma istaagayso ilaa in la wada hadlo maahine. guriga lagu wada noolaan maayo ilaa in la sheekaysto, ilaa in wax la isweydiiyo, ilaa in la doodo, ilaa in la niqaasho. guriga wax kale guriga kuma dhisnaanayo. waxaa la yidhahdaa bacdu alazwaaj aw izawjaat laa yu'minuun biahamiyati alxibaar. ragga qaarkii iyo dumarka qaarkii ma aaminsana muhiimadda ay leedahay wada hadalka. muxuu ii sheegayaa, maxaan ka dhegaysanayaa, muxuu i dhahayaa, waxyaabahaasaan ku hadalnaa. laakiin muhiimadda ay leedahay wada hadalka iyo waxyaabaha lagu xaliyo arrintaasi aad bay u weyn tahay. bal waxaa la yidhaahdaa qofka inuu hadlo wuxuu doona ha ku hadlee waa qanaaca ayaa yidhaahdaa. qofka markaa la hadasho uu ku dhegaysanaayo, ma qofka markaa uu kaa jeesanaayo, waxaa ka fiicanba inuu ku caayo xitaa uu kusoo fiiriyo, uu kula hadlo. taas waxaa yidhahdaa ayay ka mid tahay qanaacada. famaa baalo laba qof oo isjecel, laba qof oo carruur isku dhalay, laba qof oo guri wada degan inay sheekaystaan, ayadan arrintaa maxay keeni kartaa? waxaa la yidhaahdaa arrinta kale alxibaar mas-uuliyatun mushtarika. alxibaar mas-uuliyatun mushtarika, in la wada sheekaysto oo sheekadii la bilaabo, sheekadii la wada hadlo, qofba qofka kale mas-uul ayuu kaga yahay. gabadha keligeeda mas-uulka ma ahan, wiilka keligeena mas-uulka ma ahan, kulligood mas-uul bay ka tahay. waxaa la yidhaahdaa ragga qaarkii mas-uuliyadda wada hadal la-aanta guriga waxay dusha kaga tuuraan, dumarka ayay kaga tuuraan. waxay yidhaahdaan xaaskayga ma hadasho, xaaskayga intay ka dhacday waa mid aamusan, waa mid qallafsan, ma taqaano kelimaad, ma taqaano sida loo doodo. arrintaa ayay ku hadlaan. sidaa darteed waxaan leenahay aswaajka qaarkii iyo ragga qaarkii dhexdooda waxaa ahaaday jidaar, derbi baa dhexdooda ka dhisan. wa asxaabihi waman walaa. ama bacdu, ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh, allahaasoo inagu soo kulmiyey halkaani si aan uga faa'iidaysano khayrkii iyo khayraadkii. wa bacda hada in sha allahu tacaala waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii islaaxu lusra. caawana in sha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo fan alxiwaar bayna الزawjayn. fanu alxiwaar bayna الزawjayn, wada hadalka ay wada hadlayaan lamaanaha isqaba ayuu ku saabsan yahay mawduuceena in sha allahu tacaala. mawduuca laba arrimood oo asaasi baan in sha allahu tacaala aan kaga hadli doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo. mushkila cadamu الtawaasul bayna الزawjayn, mushkilada keeni karta labada qof inaysan wada hadlin oo wada sheekaysanin. mushkilada keeni kartaan wax ka sheegi doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo. waxaa kaloo wax ka sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraaho subxaanahu wa tacaala alxal lihadihi اlmushkila, xalka lagu xallin karo mushkiladaasi keentay labada qof inaysan wada hadlin. wada hadalku wuxuu ka mid yahay rukniyada ugu waaweyn iyo tiirarka ugu waaweyn ee guriga uu ku dhisan yahay.
haddii reerka ay si fiican ay wada hadlaanna boqolkiiba 99.9 waxay u badan tahay guriga inuu farxadiisa iyo inuu sii dhisnaado. boqolkiiba 99 ayay u dhowdahay. wada hadalku marna wuxuu keeni karaa gurigii inuu dumo, marna wuxuu keeni karaa gurigii inuu dhismo. haddaan nahay annaga Soomaali, guryaheena lagama yaqaano wada hadal, guryaheena lagama yaqaano in la is hor fadhiisto, qalin waraqad la isku soo qaato oo la xisaabtamo. anaga gurigeena lagama yaqaano sida loo aamusan yahay oo xanaaqii la iskugu qarinaayo, dagaalkii sida kalimaadkii loo aruurinayo hal mar buu qofkii qarxayaa, markaas buu leeyahay ifur iyo waan ku furay keliya. horey waxaan ugu soo hadalnay mawaadiic fara badan oo arrintaa ku saabsan, waxyaabo waan ka soo taataabanay. liajli haadaa caawan waxaan u qayidnay oo keliya in aan baranno sida loo wada hadlo. inaad barato haddaadan gurigaaga iyo qoyskaaga ama adiga iyo odaygaaga mise adiga iyo xaaskaaga haddaadan wada hadlaynin, sidee baad xalkiina sideed ku gaaraysaan? mida kale, guriga mar walba waxaan ku celcelinaa guryaha oo idil jecel kuma wada dhisna. guryaha aad u jeedid oo idil jecel kuma wada dhisna. guri waxyaabo fara badan ayuu ku dhisan yahay. raxmad ayuu guryaha qaar ay ku dhisan yihiin, qaarna maxabo ayay ku dhisan yihiin, qaarna mawaddo ayay ku dhisan yihiin, qaarna xibaar iyo sheekaysi ayay guryaha qaar ku dhisan yihiin. sidaa darteeda bal caawa insha allahu tacaala inaan baranno sida loo wada hadlo, inaan baranno sida loo sheekaysto, inaan baranno marka la isku dhaco oo la isqabto sida loo wada hadlaayo, sida la isku qanciyo, sida arrinta loo qaboojiyo, sida arrinta loo dejiyo, sida qofka waxaad ka tabanayso sidaad ugu gudbinayso ayay insha allahu tacaala mawduucayna uu ku saabsan yahay. fatacaaluu macanaa linabda insha allahu tacaala. waxaan ka bilaabaynaa mashaakisha keeni karta labada qof inaysan wada hadlaynin. mushkilaadka aad bay u fara badan yihiin, laakiin waan soo koobi doonaa. mushkilada ugu horeyso mushkilatu lkhars الزوجي وغياب الحوار بين الزوجين. in aysan gabadhii iyo odaygeeda inaysan wada hadlin. ikhtiyaar al-isluub al-haadi, qofka inuu qabsado waqti ku habboon. waxaa la yidhaahdaa markaad wada hadlaysaan inaad ku wada hadashaan meel haadi a degan, inaad ku wada hadashaan. waxaa la yidhaahdaa culimadu waxay yidhahdaan as-sawtu muhimun fi lmusaaraxa. hadalka degan wuxuu ka turjumayaa wanaagga labada qof ay isku heeyaan. qal hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu jecleen, qal hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu doonaynin, qal hadduu dhaco micnaheedi maha inaan lagu rabin, qalad hadduu dhaco micnaheedi maha in lagu takrifalaayo. qofka wuu qaldami karaa, qalad wuu dhici karaa, laakiin markaad wada hadlaysaan aad qofka wax aad u qabsanayso maxaa loo baahan yahay waqti ku habboon inaad qabsato, mawduuca aad taagan inaad ka hadasho, hadal fiican inaad ku hadasho, isluub haadiya inaad u hadasho. intaasi waxay tahay baan dhahnay sida loo xaliyo mashaakisha guriga iyo sida loo wada hadlo markuu dhib imaado. arrinta kale waxaa yidhahdaa التجزئة في المصارحة. التجزئة في المصارحة waxaa ula jeednaa marka labada qof ay wada hadlayaan in ay ku hadlaan, in ay u hadlaan infiraadi. waxaan ula jeednaa halsha arrin taagan keliya in laga hadlo, hal mawduuca taagan, mawduuca keliya in laga hadlo. in halna qofka yidhaahdo waxaana iga samaysay, waxaana samaysay, waxaana samaysay, inaad malafaad iyo buwaagtii hore aad la soo baxdo. arrintaa waxaan dhahnay waxay keenaysaa labada qof inay isku xanaaqaan oo isfahmi waayaan. laakiin mawduuca hadda taagan, caawa jasti taagan in laga hadlo, la dhameeyo, la daboolo, la jexjeexo, destibilinka lagu soo rido, kadib midkaa la furaa loo baahan yahay. waxaan dhahnay markaan kasoo hadlayna muxaadaradeenii hore sidee qoyska loo xaliyaa, baro sida qoyska loo. waxaan dhahnay soomaalida guryaha waxyaabaha buri waxaa kamid aan dhahnay qofka wuu keesanayaa waxyaabaha uu qabo,
وكيسانيا وحبا لا يسمينا وقريا بوك قريا ما وحساب تمايا هل مربو حناقة يقولي والوان قرحة يا يفر مدحي سي ليش محاكينا يو قفكي وحو كيسادي قلداتكي لغا قلي بو كيسادي لكن معي كوفي عن هاي جست قال لغا قل إنها كنتي aad banaanka soo dhigto in laga xaliyo laga qanciyo taasina wanaag iyo khayrka uu ku jira arinta toddobaad ala al-infiraad marka la wada hadlayo in gooni loo baxo marka la wada hadlayo in gooni loo baxo maxaan ula jeednaa inaan caruurta hortooda lagu hadlin maxaan ula jeednaa marka baska la saaray in la doodin maxaan ula jeednaa marka telefoonka lagu hadlayo dadka la ag joogaan inaan la hadlin leesh qof walbo bini aadam ah ilaahay wuxuu ku abuuray oo qalbigiisa ku jira takabus laweyni maxaa yiraahdaa qofkan hadda tira waxaan ba ay qabatay oo qof kale uu ag joog uu maqlay muxuu ka ordaya naagta ninka naagta iska haysataa naagta inuu maxay ka ordaysaa war adigoo Yurub joog meelahan joog meel lagu gumaysanaya yani qofkii wuxuu leeyahay war bax war iga taga ma ay gumaysanaysaa laakiin marka la wada hadlayo ala al-infiraad in meel gooni loo baxo si khaas loo hadlo markaasina arinta ay ku fiicnaanaysaa taasina wanaag iyo khayr lagu gaaraya khaasatan maxaa loo baahan yahay ilmaha hortooda in aan lagu doodin ilmaha hortooda inaan lagu wada hadlin ilmaha hortooda inaan la isku ceynin ilmaha hortooda inaan hadal lagu furin marka ilmaha seexdaan ay iskuulka aadaan markaan leenahay waqti ku munaasab ah dooro waxaan ula jeednaa xilli aan labadiina kaliya aad tihiin ilmihii iskuul ay jiraan mise ay wareeg ay aadeen aad guriga kaligiin aad ku sugan tihiin mise ay seexdeen kadib meeshaas kula hadla arinta kale waxaan anay in ilmaha hortooda lagu hadlo waxaan anay ilmaha mar walba waxay u baahan yihiin in la tusiyo al-iijaabiyat wax wanaagsan kaliya inay idinka arkaan mar walba ku soo celinaa ilmaha hortooda in cuntada afka la isugu geliyo oo hortooda la isku dhunkado hortooda cabitaanka lagu cabo taasay ilmaha ay ku soo barbaarayaan wanaag iyo khayr bay ku gaarayaan arinta sideeda bad'ul ihya bad'ul iijaabiyat in laga bilaabo waxyaabo wanaagsan qofkan qalad buu ka galay waa isfar fadhiisateen inaad ka bilaawdo waxyaabo wanaagsan u qabto war nin yahay qof fiican baad tahay war gabar yahay qof fiican baad ahayd waxaan baad tahay ma sha Allah weligaa saan baad ahaan jirtay saana ku aqaanay saan baad ahaan jirtay ma sha Allah laakiin hal arin baa ka aan kaaga cawanaya walaalow maxay tahay kulan walaalow muxuu yahay kuleedahay دربيga maxaa loo baahan yahay in la dunya loo baahan yahay in meeshii lagu abuura loo baahan yahay xadiiqa aseenbayr meeshii lagu abuuro دربي meeshii in lagu abuura loo baahan yahay kadibna meeshii uu yimaado bil aswaat al jazaba aswaat jazaba hada la soo jiidasho badan hada lo macaan هذا لا وضع قف أي كولا هلان وليس بيوتنا قريهني معهن صحراء ميل لما دجان معهن أو علاء مرك قفك أوه الله هذا الكيد باش أي قد قايس معهن لا وضع قف حلو باهي هاي إنه النقدان لا وقفه اسكودو لا وقفه شيء كيسانيسو لا وقفه شيء كيسانيسو لا وقفه نقاشيسو أرنت الشناد حالي هذا كثرة الخلاف خلاف كوفربته كثرة الخلاف خلاف كوفربته تقتل الحوار وحيد شاوذ الشيء كيس الآن بكينيسا خلاف كأوبته وحيد كينيسا الله يلقف إنه الشيء كذو ذي أيراتهم وحالي هذا اسقب قبسي بدن إيو هذا لذا أدك لوذا لمعناها نحذو ذي هديتي ماضم ميشا وحا إيمانا إن الله وذا الشيء كيسنين إن الله وذا هدلين إن نحيوك لا يسوق يا إيمان يسون خاصة إذا كانت الزوجة هذي قبلي أي تهاي مد عرب دير عرب كذا سكين لمد يهاي ما أنت لنا يكون هالليسون وحياة أن لا بهنين أي أضيق يكون هالليسون أرنت لحى الاهتمام المشتركة تخلق الحوار الله في عنام بدنا الاهتمامات إن لا وذقف أي اهتمام أساسيان لا وذقف إن أي اهتمام أي إصدانيان أي إسكفكران أرنتا وحي أبو ريسا لوضي قف إني وضا شيكيستان لوضي قف إني وضا شيكيستان بأرنتا أبو ريسا وحاج مرق الحال أزواج آنان لحظو ذا تالين اهتمام اسم دانينا يهان
waxaana samey waxaan barxaaskaaga garbasaarkan ama malqabadan u qaad wuxuu ku leeyahay maxaa iga galay may ayaga soo gadato bilaa ihtimaam mustaqbalkeeda maad ka fakartid maxaa iga galay waxaan ma u qabatid maxaa iga galay adigan sidoo kale hadii la yirahdo war odaygaaga saan weeyaan waxay leedahay muu dhinto muu derbi kasoo dhaco muusan soo laabanin nima lawaynaya ayaa noocaas baan ku hadalnaa laakiin waxaa loo baahan yahay dhahanay ihtimaam labada qof inay isa siiyaan ay iska fakaraan ayaa loo baahan yahay haddii meesha laga waayo ihtimaam meesha waxaa ka baxaan dhahnay labada qof inay wada sheekaystaan ay wada xiriiraan arrinta todobaad ghiyaabu tafaahum yuuladu sumt labada qof haddaysan isfahmaynin ama hadduu dhexdooda ay ahaato isfaham la-aan meesha waxaa ka dhalanayo aamusnaan in labada qof inay kala aamusnaadaan ina sumta aamusnaantuna kama turjumaysa labada qof inaysan isjeclayn laakiin waxay ka turjumaysaa labada qof inaysan isfahmaynin labada qof dhexdoodii inuusan isfaham fiican inuusan yeelin intaa waxaan dhahnay waxaa lagu gartaa isfaham la-aanta iyo wada hadal la-aanta labada qof dhexdooda arrintaa ayaa lagu gartaa haddaba sidee baa xalka loogu gaari karaa mise xalka sidee buu noqonayaa waxaa arrintaa lagu xaliyaa dhowr arrimood baa lagu xalinayaa haddii la isqabto ay noloshii ay qaraaraato waxaa loo baahan yahay labada qof inay wada hadlaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax isweydiiyaan waxa la isweydiiyana waxay ka mid tahay xalka guriga ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa xalku wuxuu aas-aas u yahay in labada qof xalkooda gurigooda iyo wada socodkooda iyo wada noolaashahooda ayuu wuxuu u yahay aas-aas u yahay haddii labada qof aysan wada hadlaynin aysan wada sheekaysanaynin arrintaa waxay daliil u tahay wada socodkooda iyo wada noolaashahooda in ay arrintaasi ay dhibaato fara badan ay kasoo gaarayso haddaba maxaa lagu xaliyaa arrintaasi maxaa lagu xaliyaa waxaa aan kusoo koobi doonaa dhowr arrimood kow fatxu qanawaat